Isbitaalada dalka Turkiga ku yaala gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada Istanbul ayaa wajahaya fadeexad ah in ay si ula kac ah u dilaan caruurta yaryar ee markaasi dhasha. Intaan ugu gudagalina sheekadan hadii ay tahay markii kugu horeyso aad soo boqoto waxa ka codsanayna in aad nagu soo biirto maasan. Ugu yaraan 10 cunug ayaa la soo wariyay in ay ku dhinteen xaaladda ka dhalatay kala wareega loo kala wareejinayay laba isbitaal oo ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Kadib markii qaar ka mid ah caruurtaasi ay dhasheen iyagoo aan bilahooda dhameysan loona waayay qalabka lagu koriyo caruurta aan bila dhameysan. Bishii November sanadkii 2016 Toga iyo xaaskiisa waxa isbitaalka ugu dhashay 3 cunug oo mataana ah balse dhicis ay ahaayeen isbitaalka iyo qaybta gargaarka degdega ah ma aysan haynin 3 dhalo oo ilmahan lagu koriyo. Sidaas daraadeed qoyska waxa ay go'aansadeen in ay u raadiyaan isbitaal kale si degdeg ahna isbitaalkan looga qaado oo loo geeyo isbitaal kale. Mid ka mid ah ilmahayga ayaa dhintay maalinkii saddexaad ayuu yiri ninkan oo la hadlay warbaahinta BBC-da. Waxa uu yiri geerida waxa keenay dhibaato dhinaca neefta ah iyo caabuq ku dhacay ilmahan yar 9 casho gudahooda. 2 cunug ayaa noo hartay dhaqaatiirtana waxa ay noo sheegeen in labadan cunug ay caafimaad qabaan. 5 maalmood kadib dhakhtarka ayaa soo wacay oo noo sheegay in mid ka mid ah ciyaalkan uusan fiicnayn xaaladiisa caafimaad uuna la mid yahay cunugii hore oo kale. Wuxuuna noo sheegay in aan si degdeg ah u imaano isbitaalka ma gali karin qaybta daryeelka degdega ah balse waxaan daaqada ka daawanay maalinkaas cunugeeni oo dhimanaya. Waxaan u sheegay shaqaalaha caafimaadka waxa disheen cunugeygii koowaad makan saddexaad ayaa doonaysaan in aad naga dishaan. Waxay noo sheegeen in aan isdejino oo xaaladda aysan sidaas ahayn. Sida laga soo xigtay eeda ka kooban 1400 oo bog caruurta la geeyo mid ka mid ah 19 isbitaal ee eeda ay dul hoganayso waxa la siiyay daawo aan loo baahnayn si loo qiyaamo nidaamka badbaadada caruurta ee dalka Turkiga. Shabakad ka kooban shaqaalaha caafimaadka ayaa lagu eedeeyay fadeexadan. Warbaahinta Turkiga ayaa ugu yeertay burcadda dhalanka halkii cunug ay ku hayaan qaybta gargaarka degdega ah maalinkii lacag dhan $130. Ugu yaraan 10 cunug ayaa la sheegay in ay ku dhinteen gacmaha shaqaalaha dayaca iyo qalad ay sameeyeen awgi. 47 qof ayaa la keenay maxkamadda toddobaadkan ayna ka bilaabatay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. 22 ka mid ah dadkaasi ilaa iyo hadda xabsi ay ku jiraan. Eedeysanayaasha waxa ay beeniyeen in ay sameeyeen wax qalad ah waxayna ku adkaysteen in ay go'aanadooda ay si daacad ah u gaareen. Eedeysanaha ugu weyn waxa la yiraahdaa Dr. Firada Sari waxaana loo haystaa in uu sameeyay urur ujeedkiisu uu yahay in ay khiyaanaan hay'adaha dawliga ah iyaga oo sameynaya dukumeentiyo been abuur ah. Haddii lagu helo khiyaanadan uu sameeyay waxa uu wajihi karaa 583 sano oo xabsi ah. Dacwadan ayaa la furay kadib markii booliska ay heleen xog ay baaritaan ku sameeyeen tan iyo bishii Maajo sanadkii tagay ee 2023. Mid ka mid ah 19 isbitaal waxa iskale wasiirkii hore ee caafimaadka ee dalka Turkiga oo ka tirsan xisbiga hadda talada haya. Shatiga ayaa isbitaalkan lagana noqday dayacadii uu sameeyay awgi. Ilaa iyo hadda 350 qoys ayaa codsaday in baaris lagu sameeyo geerida dadkii dhintay sida ay sheegtay warbaahinta dawladda ee dalka Turkiga. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa loogu baaqay in uu xilka iska casilo iyo in dawladda ay qaado tallaabo dhammaan lagu xirayo isbitaaladan fadeexada ay dul hoganayso. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kuwa mas'uulka ka ah geerida caruurtan yaryar ay la kulmi karaan ciqaab adag. Wuxuuna ka digay in eedaha dul hoganaya isbitaaladan la marsiin doono nidaam sharci ah oo la kala saari doono. Ilaa markii ay soo ifbaxday fadeexadan geerida caruurta yaryar qoysaska dhibanayaasha ah cabsi iyo walwal ayaa soo food saartay. Markii aan akhriyay wararka sheegaya fadeexadan lama hadli karin xaaskayga ayuu yiri ninkan oo la hadlay warbaahinta BBC-da. Ninkan cunuga kaliya ee u haray hadda waa 8 jir waxa ayna isaga iyo xaaskiisa ay go'aansadeen in aysan dhalin cunug dambe inta ay ka jirto dalka Turkiga nidaamkan caruurta yaryar lagu dilayo.